سائلك حاجة وحولية هاي cadayga la cadaysto galabtii ma karaahiya mise waa mubaax daawada lagu cadaysto sida Colgate-ka soonka wax ma u dhibaysaa alxamdulillah waa laba mas'alada ah gelinka dambe duhurka haddii la gaaro bacda zawaal in la cadayda ma sunna mise waa karaahiya oo masalo la isku qabtay oo ku xidhan tafsiirka xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasallam markuu soonka fadligiisa ka hadlayay wuxuu yidhi la khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi ilmisk qofka sooman afkiisa hawada ama qaaca aan carfaynin uraya ee ka soo baxa baa ilaahay agtiisa cadarka miskiga ee udgoon ka sii udgoon khaluufkaasi xaggee ka yimaadaa ma af aan la cadayin oo isbeddelay buu ka yimaadaa mise calool baahan oo madhatay oo gaaskay sii deynaysay buu qaacaasi ka yimaadaa khaluufkani xaggee ka yimaadaa halkaasay culimmada ahlulcilmigu ku qaybsan yihiin qayb waxay yidhaahdeen khaluufku wuxuu ka yimaadaa gudaha caloosha oo calooshu markay maran tahay wixii aysidkiiyo ay sii deynaysay cunnadu qaabilaysay ku dhacayeyna ay weydo qaaca bay sii deynaysaa qaaca markuu soo baxo si kastoo loo cadaydaayey hawo beddelan baa soo baxaysa taasaa loo jeedaa la khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi ilmisk sidaas darteed caday shaqaba kuma laha ilka la cadayey iyo af la nadiifiyey shaqaba kuma laha khaluufku maba ka yimaada afka culimo fuqahadeenna shaaficiyadu ay horgal u yihiin hormood u yihiinna waxay yidhahdeen maya khaluufku wuxuu ka yimaadaa ilka iyo af aan la cadayn oon la nadiifinin qaaca ka soo baxa weeye khaluufku saa darteed khaluufkaasi hadduu ajir leeyahay oo ilaahaysa qiimo darajo ka leeyahay haddaad cadayaa tahay meesha wuu ka baxayaa wuu zuulayaa saa darteed cadaygu si guud waa sunno subaxa hore lama dareemo salaad subax baa la cadayday laakiin duhurkiiyo haddii la gaadho khaluufku markaasuu dee isbeddelka afka aan la cadayini subax laga soo bilaabo gelin dambe unbaa la dareemay oo khaluufkiisu muuqda saa darteed cadaygu bacda azawaali waa karaahiya haddaba tafsiirka xadiidkaas cidday raajix la noqoto khaluufku caloosha inuu ka yimaadana intaan ogahay aayad iyo xadiid iyo nas ma jiro odhanaya khaluufku ilkuhu ka yimaadaa ama khaluufku caloosha urta ka timaada waay midna ma laha waa masalasi ijtihaadiya waay waxaan shaki ku jirin labadaba afka haddaan la cadayinna ur buu yeeshaa markii la cadaya baabba'a calooshu hadday maratana qaacaan udgoonayn bay soo saartaa waa midkee khaluufku allahu aclam labaduba way dhici kartaa laakiin fuqahadeenna shaaficiyadu waa midkan afka ay yidhaahdeen midkan afkaa in la cadaya waa karaahiya xaaraan maaha dembina maaha in la daayana waajib maaha laakiin in la cadaya waa karaahiya halkaasay fuqahadeenna shaaficiyadu ka keeneen masalada khilaafigiihi maadaama masale ijtihaadiya ay tahay waxaa muhima qaacidada fuqahadu ay yidhaahdaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga fogaadaa wanaagsan waxaa wanaagsan inaad iska badaysa cadayga haddii aadan dadka dhibaynin oo afkaagu ur dheeraada intuu yimaado aadan dadka dhibaynin haddiise ay noqoto jamaacadii masaajidka inaad dhibayso ama qur-aankaad akhriyaysay af qarmuun aad ku akhriyayso iska cadayo waxna sood khilaaftay ma jiro masalada karaahiyadana ulakacbaaba loo samayn karaa lama dembaaba karaahiya haddii la sameeyo haddaad maqato fuqahada iyo axkaamta oo kale waa karaahiya samaynteedu dembi maaha keliya haddaad samaysa ajirkii soonka waa ajirkii cadayga waad heli iyo heli maysid waaye intaa wey waxaa la isku hayo haddii waad kuu dhiba ama dadka ku dhibaysana iska cadayo haddaad khilaafka isaga fogaan kartana iska badaa wabilaahi towfiiq koolgeedka ma lagu cadayan karaa innaga waagii hore koolgeedka
kolgeedku waa hal nooc oo dawooyinka cadayga ka mid ahe dawooyinkan cadayga lagu isticmaalayo ilkaha lagu cadayo ma la isticmaali karaa haddii la yidhaahdo waxaa soo gelaya kuwo badan oo kale oo inna waan isticmaali jiray waagii hore ama haddaba laga yaabo in la isticmaalo mararka qaarkood geed cusub markaad caday cusub soo goyso ama laan qoyan ha noqdo ama xidid qoyan ha noqdee qaac buu leeyahay dhadhan sooma sida midkan oo kaleeta ah dawooyinkan cadayga laftoodu kuwa cadaygii laga sameeyey ama dhadhankiisii iyo urtiisii loo yeelay beelada mararka qaarkoodna ilkuhu markii ay wax badan yeeshaan waxaan marin jirnay dhuxul sooma dhuxushaasi ama marmari ama intaad burburiso ood gashata cadayga ku marmari iyada lafteedo intaad yar ruugta cadayga ku mari iyadana kolgeedkan waxa loo bixiyey magacaa loo wada bixiyey raaci waxyaabahaasoo dhan ma lagu cadayan karaa jawaabtu waa haa keliya hal wax baa lagaa rabaa inayan gudaha u dhaadhicin inayan gudaha aynan u dhaadhicin baa lagaa rabaa waayo cadaygan daawadan ilkaha la mariyey xaggay gaadhay ilkahanay gaadhay markaad weysaysanaysae luqluqatay biyuhu xaggay gaadheen soo intan dawadu gaadhay biyihiina ma gaadhin oo taad ku luqluqanaysa ma aha afkaa wixii galaay wuxuu soonka jebiyaa markuu dhaadhaco markuu galo haddii aad dareento inuu kharaar yahay inuu macaan yahay inuu dhanaan yahay inuusan intaa midna ahayn haddaad dareento dareenkaasi wax ma jebiyo lidaalika fuqahadeenna axkaamta waxay ku dhihi jireen laa min طacmin wa dawqin dhadhamin iliga lagu dhadhamiyey ama carabka la saaray ama dhadhankii wixii uu ahaayood gadaal ka dareentay soonka ma jebiyaan laa min طacmin wa dawqin waa ereyada fuqahadeenna axkaamta shaaficiyada ay isticmaalaan wey saa darteed baa la ogol yahay haddaad raashin karinayso inaad iliga ku tijaabisa inuu jilcay amaad carabka saarta cusbe inuu leeyahay iyo in kale laakiin halliqina tuf saas darteed bay fuqahadu oggolaadeen xanjada la ruugayo een wax ka miilmaya ee gudaha gelaya aan lahayn haddaad ruugtood iska tufta candhuufteeda inayna dhib lahayn waayo afkii biyahaad ku luqluqanaysay ma dhaafin weli soonkana waxaa jebiya wixii gudaha u dhaadhaca waxaan rajaynayaa intaana iyo wixii lamidana inay su-aasha jawaabtaasi deeqdaan rajaynayaa wabilaahi towfiiq